siyaasiyiinta Soomaaliyeed waxaan dareemay intaan fadhiyay in stress nahayo hadana siyaasiyiinta stress kaasoo na gaarsiiyay inaan garaweyna siyaasaddu meesha inaga jirto aan ku wareernay hadii laakiin habeen kasta ama usbuuci ama bishii dhowr jeer sidaan oo kala aad noogu yeertaan stress-kuna waa naga bixi lahaa markaas aan go'aan lahayn siyaasaddu dhanka inaga jirtay ee waqtiga ay munaasabka tahay inaan araajida soo baxsan dawladihii isbedelay kala dambeeyay midba meel ay soo gaarsiisay ummadda Soomaaliyeed waxaan hubaa laguma hawoodeen in tartan iyo madaxtinimo la raadiyo hadii ayna salka dhigin dawladdu hadii ayna nabad waarin hadii kala dambeyn iyo sharcigu aan hirgelin waa hubaa siyaasiyiin fara badan oo anigu kamid ahay ayaa arji u qoran yahay markii doorasho la gaaro inay tartamaan laakiin waxa la rabaa in la gaarsiiyo tartanka oo mid walba ku hamiyo hadii uu tartamo madaxtinimada helo in la shaqeeyo jeclaan lahaay inuu la shaqeeyo kuwa kursiga ku fadhiya hadda waxa ugu badan ee dhibka keenayna inuu stress yahan ogaado marka stress siyaasadeed uu nooga baxo munaasabadahan oo kale hana loo heeso hana la waaniyo waad maqlayseen Ali Maxamed Geedi siyaasadda siba uu arkaa idinkuna waxa laga yaabaa inaad siyaabo kale u aragtaan iyo siyaasiyiin kale oo fara badan marka anigu waxaan dhihi lahayn saaxiibada siyaasiyiinta ee u diyaar garoobaya tartanka madaxtinimada dalka inay fahmaan habeenna loogu celiyo igu dayo walaal ha igu daydaan aniga waxaan sida u leeyahay waxaan ka digayaa in qalbiga laga jabiyo shacbiga Soomaaliyeed oo u ooman una baahan dawladnimo iyo xasilooni iyo xayaato sharaf leh inay ku noolaadaan sida asaagooda beesha caalamka jiilalkeena soo koraya in loo falo jidkii ay ku gaari lahaayeen dhalinyarada asaagooda iyo nolosha ay haystaan ayaan rabnaa in loo jid falo looma baahna marka in la carqaladeeyo siyaasi kasta ha ku fikiro marka uu xilka ku guuleysto in sida uu jecel yahay in loola shaqeeyo in uu la shaqeeyo kuwa maanta jira in la shaqeeyo rabaa dawladda qofkii hambi oo uga jiro inuu tartamo dalka madax ka noqdana inuu la shaqeeyo midka hadda fadhiya rabaa berita hadoo si uu guuleysto si loola shaqeeyo waxa la yiraahdaa nacaybka saddex waa la yiraahdaa waxa jira la yiraahdaa isir nacayb waxa jira la yiraahdaa fal nacayb iyo fool nacayb isir nacaybku waa cidda aan rabin Soomaaliya jiritaankeeda iyo sharafkeeda ama ajnabi ha ahaadana ama kuwa nugu madab ha nugu magac ha ahaadana isir nacayb la yiraahdaa kuwaas dawo male fal nacayb waxaad qabanaysaa haday fiican yihiin u nacaya fal nacayb la yiraahdaa inuu wax qabtana ma rabo hadaad wax qorxan qabatana adoo kula diriraa fal nacayb la yiraahdaa fal nacayb waa qofka shakhsi nacab wuxuu ku nacab yahay asaga yaqaan oo shakhsi ahaan dhahayo hebel waa nin stupid waay hebel stupid waay sababna uma yeeli kale marka kaas dawo ma laha waxaan rajaynayaa marka in Soomaaliya laga guuro xujooyinka raqiista ah ee weeqi kara horumarka iyo meesha ay higsanayso ummadda Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed cidaan u naxayno waxa lagu sifay karaa inayna garanin meesha laga keenayo sida lagu keenay la xajayla iga hay Ali Maxamed Geedahan waa fadhiyaan filayaa xukuumadeedii aan hogaaminayay iyo dawladdii aan ka tirsanaa dadka soo shaqeeyay meesha waa fadhiyaan waxaana kamida gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada oo wasiir ah marka in dowqaygu fiicna iyo xulkaygii waxa cadeeyay hadda madaxweyne Farmaajo magacaaba asaga waxaan qabaa marka Soomaaliyeed la xajayl cid oo ka haya qarannimo Soomaaliyeed ha iska iloobo hab dhaqankaas aan siyaasad ahayn ee aan sheegay sifooyinka nacaybka ku salaysan cidii wax isku haysa 4 sano ayay ahayd mandate-ka dawladda Farmaajo hogaaminayo madaxweyne Farmaajo waxa ka dhiman bilo cidii wax isku haysa arjiga inta qorato oo dadka shukaansato salaaxato shacbiga Soomaaliyeed kalsooniga ka raadsato laakiin qaylo waxba lagu ma qaadayo laga waantooban leeyahay